xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa gebi ahaanba si adag u qaadacay xuska 18 May ee xukuumadda Soomaaliland sheegtay in la xusi doono 15 May bisha Ramadaan awgeed iyagoo gebi ahaanba sheegay inay xisbiga mucaaradka ee wadani iyo taageerayaashooduba ay xusi doonaan xilligii loogu talagalay ee 18 May go'aanka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland ku aadan in la xusayo 15 bisha Mayna ayna dhag jaraq u dhigi doonin hasaatee ay xusi doonaan xilligii loogu talagalay xogayaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo muuqaal uu iska soo duubay ay warbaahintu heshay ayaa waxa uu sheegay inaanay gebi ahaanba u hoggaansameyn go'aanka ay xukuumaddu qaadatay sidaa daraadeed anagu 18 May hartu 18 May baan xusaynaa xisbi ahaan iyo taageerayaasheedana saasaan la socodsiinana qurbaha iyo gudahaba in 18 May xisbigu xusi doono 18 May waa bil Ramadaan waa run Ramadaantu waa bil khayr waa bil aan u baahanahay inaan cibaadada kordhino laakiin waxa Ramadaanta xaaraanta inaga ahi bilaha kalena way naga xaaraan dad muslimiina baynu nahay nolosheena waxa gaargareeya oo haga qiyamka iyo akhlaaqiyadka islaamiga qiyamkeena iyo akhlaaqiyadkeena islaamiga xukuumadda mas'uul ba ka saaran maalin kasta minute kasta daqiiqad kasta inay ilaaliso oo ay ka warhayso 18 May waxay ku fadhidaa taariikh dadka reer Soomaaliland achievement ay gaadheen waxa la yiraahdaa milestone meel ay u socdeen iyo waxay doonayeen inay gaadhaan maalin ay gaadheen weeye marka waa maalin ku fadhida taariikh halgan dheer oo dadka reer Soomaaliland ay soo galeen oo ay guul ka gaadheen inay dawladnimadoodii dib u soo noqdaan oo ka luntay 1960kii maalintaasi waxa kale oo ku ladhan sababta halganka loo galay iyo sababta Soomaaliland ay Soomaaliland u noqotay iyo sababta maxaan ku dhahdaa aynu uga noqonay midowgii Soomaaliya iyo waxa burburshay dawladdii Soomaaliya ee weyneed aynu ogeyn taariikhda aan la fahmaynaa taa weey oo ay gundhig u ahayd cadaalad darro 18 May markaa waa in cadaalad ka turjuntaa maadaama ay 18 May ka dhalatay cadaalad darro shacbiga reer Soomaaliland ay ka tirsadeen nidaamkii kala taliska ahaa ee Siyaad Barre inaga taariikhdeena iyo 18 May xuskeeda waxyaabaha ugu waaweyn ee isxasuusinayna waa inay noqoto muhiimadda ay cadaaladdu leedahay muhiimadda ay kala talisnimadu leedahay muhiimadda ay maxaan ku dhahay iscabrintu iyo dadkoo loo diiday inay hadlaan iyo dhibaatada ay keeni karto inaan isxasuusino oo aan fahanno maxaa burburiyay dawladdii mar ahayd wadamada Geeska Afrika uga awoodda weyn oo waxyaabaha ugu waaweyn ee burburiyeen ay ahayd marka eegto taariikhda dib ugu noqoto cadaalad darradii ay dadkeedii iyo shacbigeeda u geysatay legitimacy-ga amaba maxaan ku dhahday dawladii inay haysato dareenka dadkeeda iyo taageerada dadkeeda kuma timaado kaliya ta doorasho kuma timaado kaliya ta lagu doorto waxa ay ku timaadaa oo gundhig legitimacy-ga u ah jiritaanka cadaaladda haddii dadku ay cadaalad waayaan oo maxaan ku dhahdaa ay arki waayaan sinaansho waxa weeyaan waa astaanta koowaad ee muujisa inaanay ummadaasi sii jiri karahayn cadaalad darradu waqti kooban un bay jirtaa Ahmed Khalid Farax Ariel TV Hargeysa